madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu helinayo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf oo maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa deegaano ka tirsan Galmudug ayaa maanta oo Talaada waxay gaareen magaalada qadiimiga ee Hobyo ee saaran badweynta Hindiya. wafdiga madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha Hobyo waxaa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, madax ka tirsan Galmudug iyo bulshada u fara badan kuwaas oo maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada xeebta Hobyo. kasoo soo dhaweynta xeebta Hobyo loogu sameeyay wafdiga uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bulshadii ku sugnayd magaalada Hobyo waxay ka kala yimaadeen deegaano badan oo ka tirsan Galmudug maadaama shacabka gobolada dhexe ay muddo ku taamiyeen dib u dhiska iyo dayactirka isha dhaqaalaha Galmudug ee Hobyo. shacabkii Hobyo ku soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha ayaa ku qeylinaya ariya ay ku soo dhaweynayaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kuwa kale oo ay ku dalbanayaan in taageero loo muujiyo shacabka reer Hobyo. waxaana sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si rasmi ah u dhigay dayactirka iyo dib u dhiska degmada degmada Hobyo. duqa degmada Hobyo Cabdullaahi Faad ayaa madaxweynaha Soomaaliya ugu warbixiyay baahiyaha ka jira degmadaasi. nasiib darro mudane madaxweyne degmadu ma aysan helin xuquuqda ay ku lahayd dawladihii dalka soo maray haddii ay noqon lahayd kuwii gumaysiga ee dalka xoogga ku haystay ama dawladihii xilliga horta ee dalka aanu haysan. waxaan rajaynayaa maanta haddii ilaahay yiraahdo inay noqoto maalin waa cusub u bariyo magaalada Hobyo oo ay u noqoto bilow barakale ballaceedu uu ka badan yahay 400 kiiloomitir oo isku wareega hay'adda la yiraahdo Jisbo oo ka mid ah hay'adaha dalka Hobyo. sidoo kale ma lahayn airport ma lahayn wadada ka dhisan magaalada ee maanta soo galaysa ee ka imaanaysa gaalkacay waa mid lagu dhisay tabarucaad liyaado CBD oo ku guuleysatay noo suurtagelisay ayada iyo SSF dhaqaale ka yimid in degmada Hobyo maanta ay garoonka ka soo degtay ee quruxda badan ay yeelato ay rasaas ku madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf oo dhankiisa hadlay ayaa sheegay farxad daraadeed waa farxad taraaraya meeshan waxa hor yaal waa dhagax dhig taariikhi ah oo muddo gaaban gudaheed halkan konteynarada ka soo degaan ma ilaahay ka rajaynaya mudanayaal marweyn waxa muhiim aad u ah inaanu isku kalsoonaano hatta waxaan dawladda federaalka kaliya ku hadlayn mayno annaga lafteedu oo jeebadaha waa barbaaraynaa waa isku darsanaynaa waxaan soo saari doonaa dekad laga yaabo oo dekad rasmi ah. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhagax dhiga kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in socdaalkiisa nabadda uu ku mariyay qaar ka mid ah gobolada dalka uu isku bedelay mid horumarineed wuxuuna dhinaca kale uu ka hadlay baahiyaha dekedeed ee Soomaaliya. maanta waa maalin taariikhi ah magaaladan Hobyana waa magaalo taariikhi ah maanta inaan halkan imaano horta Allah mahad iska leh oo suurtageliyay inaan marxaati ka noqono maalintan taariikhiga ah inaan dhagax dhigno dekada Hobyo. safarkeena wuxuu ahaa safar nabadeen iyo dib u heshiisiin laakiin wuxuu isku bedelay safar horumar yuu bedelay iyo dhagax dhigyo badan oo ay ka bilaabatay iskuulo cisbitaallo maxaan iraahdaa jidad airborro haddana waxaan taagannahay dekadiyaan taagannahay iska gadinayay wax walba oo loo baahan yahay Afrika u baahan tahayna uu soo marinku soo marayay ay tahay meesha aan joogno. nasiib darro mudane madaxweyne degmadu ma aysan helin xuquuqda ay ku lahayd dawladihii dalka soo maray haddii ay noqon lahayd kuwii gumaysiga ee dalka xoogga ku haystay ama dawladihii xilliga horta ee dalka aanu haysan. waxaan rajaynayaa maanta haddii ilaahay yiraahdo inay noqoto maalin waa cusub u bariyo magaalada Hobyo oo ay u noqoto bilow barakale ballaceedu uu ka badan yahay 400 kiiloomitir oo isku wareega hay'adda la yiraahdo Jisbo oo ka mid ah hay'adaha dalka Hobyo. sidoo kale ma lahayn airport ma lahayn wadada ka dhisan magaalada ee maanta soo galaysa ee ka imaanaysa gaalkacay waa mid lagu dhisay tabarucaad liyaado CBD oo ku guuleysatay noo suurtagelisay ayada iyo SSF dhaqaale ka yimid in degmada Hobyo maanta ay garoonka ka soo degtay ee quruxda badan ay yeelato ay rasaas ku madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf oo dhankiisa hadlay ayaa sheegay farxad daraadeed waa farxad taraaraya meeshan waxa hor yaal waa dhagax dhig taariikhi ah oo muddo gaaban gudaheed halkan konteynarada ka soo degaan ma ilaahay ka rajaynaya mudanayaal marweyn waxa muhiim aad u ah inaanu isku kalsoonaano hatta
wixii aan dawladda federaalka kaliya ku hadlayn mayno annaga lafteedu oo jeebadaha waa barbaaraynaa waa isku darsanaynaa waxaan soo saari doonnaa deked laga yaabo oo deked rasmi ah. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhagaxdhiga kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in socdaalkiisa nabadda uu ku mariyay qaar ka mid ah gobollada dalka uu isku bedelay mid horumarineed wuxuuna dhinaca kale uu ka hadlay baahiyaha dekedeed ee Soomaaliya. maanta waa maalin taariikhi ah magaaladan Hobyana waa magaalo taariikhi ah maanta inaan halkan imaano horta Allah mahad iska leh oo suurtageliyay inaan markhaati ka noqonno maalintan taariikhiga ah inaan dhagax dhigno dekadda Hobyo. safarkeena wuxuu ahaa safar nabadeen iyo dib u heshiisiin laakiin wuxuu isku bedelay safar horumar yuu isu bedelay iyo dhagaxdhigyo badan oo ay ka bilaabatay iskuullo cisbitaallo maxaan idhaahdaa jidad eerboorro haddana waxaan taagannahay dekadiyaan taagannahay iska gadinayey wax walba oo loo baahan yahay Afrika u baahan tahayna uu soo marinkuu soo marayay ay tahay meesha aan joogno. Liban Cajiib Xaaji TV Universal Hobyo.
مركز الشعب كلا بروس سلامة
maxamed